wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Maxamed Daahir Axmed oo weliyo gudoomiyaha banka dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Ibrahim Doobale ayaa waxa ay akhriyeen qodobada laga soo saaray wax ka qabashada arrimaha sixir bararka Jamhuuriyadda Soomaaliland muddooyinka u dambeeyay ka jiray iyo sidoo kale qiimo dhaca ku yimid isticmaalka shilinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Maxamed Cabdi Ibrahim Doobale gudoomiyaha banka dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ka warramay kulamo ay isugu yimaadeen guddiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u xil saaray wax ka qabashada arrimaha sixir bararka iyo hoos u dhaca ku yimid shilinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. guddidaasi waxa ay yeesheen fadhiyo badan oo ay ku lafagureen qiimo dhaca shilinka iyo sidii kor loogu qaadi lahaa. waxa ay kala ay kulamo la yeesheen kala duwan dhinacyada ay u arkeen in ay khusayso sida shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ee dalka iyo bulshada la fahanteedaba cid ay ka khusayso taasoo aan loogu ay guddidu ay aad isku dhabar jabisay si ay u ogaan lahayd qiimo dhaca shilinku yimi iyo dhinacyada uu uga yimi. kulamo fara badanna ay yeesheen in badanna laga sugayay sidaa darteed waxa ay guddidu ay soo saartay go'aamadaas oo maanta aan shaacin doono. Maxamed Daahir Axmed wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa waxa uu akhriyay qodobada ay xukuumadda Soomaaliland ka soo saartay wax ka qabashada sixir bararka iyo sidoo kale hoos u dhaca ku yimid shilinka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana uu akhriyay qodobadaasi. qaraarkii guddida ayaan halkan ka akhriyaya oo qodobka koobaad in dawladda dhexe yeelato hal xisaab oo lagu shubo dakhliga dawladda amba shilin ha noqdo amba dollar ha noqdo amba pound ha noqdo sida uu dhigayo nidaamka maamul wanaaga iyo isla xisaabtanka single treasury account inay dawladdu yeelato si loola dagaalamo maxay ahayday arrimaha aan dhaqaalaha u fiicnayn oo dhan. laba in cashuurta jaadka iyo ashyaada kale ee dhibta u leh caafimaadka iyo dhaqaalaha la kordhiyo. qodobka saddexaad oo maxay ahayd laba qaybood u sii kala baxaya in la joojiyo in macaamiishu isu dirto lacag ka yar $100 person to person oo marka laga hadlayo adeega dahab iyo saad lagana dhigo xaddiga ugu yar ee qof kale u diri karo $100. taas macnaheedu yahay in la xanibay isu dirista u dhaxaysa eber ilaa 99. in la joojiyo in macaamiisha wax ku iibsan karaan lacag ka yar $100 waa merchant payment-iga wax ku iibsiga lagana dhigo xaddiga ugu yar ee qof uu maaheerada wax kaga iibsan karo $100 wixii ka yar taasoo macnaheedu yahay in la xanibay ku iibsiga u dhaxaysa la xanibayo ku iibsiga u dhaxaysa eber ilaa 99. qodobadaasi waxay saameynayaan short codeska saadka ee 880 ee dirista lacagta macaamiisha dhexdooda iyo 883 ee wax ku iibsi meherad. waxa uu sidoo kale saameynayaan 88 optionska qaybta labaad iyo qaybta saddexaad. waxa sidoo kale qodobadani ay saameynayaan short codeska dahab ee 110 ee dirista lacagta macaamiisha dhexdooda iyo 113 ee wax ku iibsiga meheradaha. sidoo kale 111 amba 31 optionska labaad iyo saddexaad waa dhinaca dahabka. go'aankani ma saameyn doono dhammaan adeegyada kale ee saadka iyo dahabka sida ku shubashada mobile recharge inuu qof xisaabtiisa banka lacag u wareejisto transfer to bank amba uu goob adeeg lacagtii saad amba dahab ugu jirtay kala baxo. marka xaddiga laga hadlayaa waa $100 wixii ka yar waa wixii ka bilaabmay 0 ilaa 99 laakiin saad waa lagu isticmaalayaa dahab wixii 100 ka badan. marka maxay ahayd shirkadaha Telesom le adeegyada saad iyo dahab waxay ku fulinayaan go'aankan muddo 45 cisho gudahooda oo ka bilaabanta 28 bisha koobaad 2018 kuna eeg 13 bisha saddexaad 2018. qodobka afraad in shirkadda Telesom shirkadda Dahabshiil iyo shirkadda Omar ay joojiyaan ka ganacsiga isku beddelka lacagaha. qodobka shanaad si kor loogu qaado isticmaalka shilinka Soomaaliland waa in shirkadda Telesom iyo Dahabshiil adeegyadooda saad iyo dahab ay ka dhigaan ku shubashada iyo ku kaydsiga shilinka Soomaaliland mid aan xad lahayn. waqti xaadirkan xad buu leeyahay laakiin waxa weeye go'aankan 45 cisho gudahood ku fulaya
waxa laga rabaa shirkadaha in shilinka Somaliland dahabka iyo saadkaba lagu isticmaalayo xaddi la'aan xaddi aan xadidnayn halkuu imika ka xadidan yahay marka go'aamadaas 45 cishay fulayaan sidii maxay ahayd gudoomiyaha bankuba sheegay ka xukuumad ahaan anagu waxaanu nahay xukuumad business friendly amba ganacsiga horumarkiisa ka shaqeynaysa laakiin aanu isku miisaamana waxa weeye danta ummadda shacabka Somaliland iyo horumarinta ganacsiga amba kobaca ganacsigu inaanu dhaawicin bulshada guud ahaan waxa annaka noodana askariga maxay ahayd mushaarka dollarka ku qaata shilinka Somaliland iyo macalinka ku qaata shilinka Somaliland iyo shaqaalaha kale ku qaata shilinka Somaliland in lacagtii aanay meesha ka bixin sidoo qiimihii lacagta shilinka Somaliland gudoomiyuhu sidoo sheegayna gudideedana waxay qaabilsanayd qiimo dhaca maxay shilinka Somaliland qiimo dhacaasna waxa weeye si kasta maxay markii loo rogrogay xaqii maxay ahayd golaha wasiirada xaqii khubarada dhinac walba laga eegay waxay ka bixi weeyday in maxay shilinka Somaliland waxyaalihii yareeray wax lagu iibsanayay haday noqoto maxay basraaci sharaabki iibsigiisii shaaha iibsigiisii cuntada iibsigeegii waxyaalihii maxay ahayd maalinlaha qofku isticmaalayay aw maxay ahayd e-money amba maxay ahayd electronic money oo meesha ka saaray sababta ugu weyn maxay ahayd ay tahay isagoo dollar ku bilaamay oo aan markii ugu hor shilinka Somaliland shirkadu way ka dabageeyeen marka shilinka Somaliland ayaa loo daayay wixii ka bilaama maxay ahayd 0 ilaa 99 in lagu isticmaalo shirkadihii saadiye dahab lacagtii la isku dilayay mobiladoodu wixii $100 ka badan maxay waa la isku dirayaa manay joogsan taasi tan kale laftigeegana muddo qaadanaysa 45 cisho marka 45 ka cisho waxaan rajaynaynaa shirkaduhu inay hawshooda ku fushadaan marka saasa maxay ahayd go'aankan ku soo gabagabeynayna